kulanti wacan wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan halkan oo xulashada wararka u diyaar garoobaha wararkeena maanta oo Jimco ah taariikhdu ay tahay 28 Agoosto 2020 saaxiibayaal wararkeena caawa wararkeena maanta kuwada ugu waaweyn waxaa kamid ah heshiiskii Dhuusamareeb 3 oo guud ahaanba la baabiyay xogo cusub oo ku saabsan heshiiskaas ayaan eegi doonaa magacaabista ra'iisul wasaaraha cusub oo wax walba ay ku xiran tahay istiraatiijiyadda filla Soomaaliya ciyaaraysa iyo caqabada ku horgudban in la magacaabo ra'iisul wasaaraha cusub Axmed Madoobe oo u digay dowladda madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo safiirka China ee Soomaaliya digniin culus soo saaray waare qorqoor iyo lafta garan oo shan qodob ku micnay shirka Dhuusamareeb ayagoona diiday inay ka qayb galaan shirka Muqdisho lagu wado madaxweynaha galmudugna waxa uu ku dhawaaqay qorshe dagaal oo ka dhan al-shabaab qodobadaasi kuba kale ayaa qayb ka saaxiibayaal wararkeena kamid noqo saaxiibada ku xiray channelkeena oo subscribe inoo dhig gambalelkana taabo si ay kugu soo dhacaan wararka iyo macluumaadada gaarka ah halkan aan ku baahino aan ku hormaro magacaabista ra'iisul wasaaraha cusub oo wax walba oo shirkadaasi ku saabsan oo markan istiraatiijiyadaasi ciyaarayso villa Soomaaliya iyo warbixinada la xiriira madaxtooyada ayaan ku hormari doonaa wararkeena maanta waxa laga joogo 34 maalmood maalintii xilka laga qaaday ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Kheyre waana muddadii ugu dheerayd dalka uu ra'iisul wasaare la'aan u yahay haddaba waxaa jira faalooyin badan oo dadka siyaasadda falanqeeya ay ku micneynayaan ilaa 34 maalin in dalka xukuumad la'aan ay ahaato inay tahay qorshe istiraatiijiyada ciyaarayso madaxtooyada Soomaaliya laga soo bilaabo bishii 6 ee sanadkan markii guddiga joogtada aqalka sare ay soo saareen ama ay shir weyne wada tashi ay ugu baaqeen dowladda federaalka Soomaaliya dowlad goboleedyada si xal loogu helo doorashada dalka loona gaaro xal siyaasadeed oo dowladda ah loona helo jawi ku dhisan isfaham iyo waliba doorasho wada oggol ah markaas ayaa la aaminsan inay soo bilaabatay khilaafkii qotada dheer ee u dhaxeeyay madaxweynaha iyo waliba ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre waxyaabaha khilaafka gundhigu waxa kamid ah in doorashada waqtigeeda ay ku dhacdo in muddo kororsi bay keeni karto qalalaasa siyaasadeed in doorashada ay noqoto nooc kasta oo Soomaalidu ku heshiiso madaxweyne Farmaajo iyo kooxka agdhow oo ugu horeeya agaasimaha hay'adda nabad sugidda Fahad Yaasin Xaaji Daahir ayaa dejiyay istiraatiijiyad fahamkeedu ahaa in ay hadda u muuqdaan kuwa ku guuleystay kadib markii xilka ka qaday ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Kheyre oo qabay aragti ka duwan midda madaxweynaha iyo taliye Fahad ah in waqtiga doorashada ay ku dhacdo haddii muddo kordhin ay dhacdana ay dhici karto qalalaasa siyaasadeed in dalka uu faraha la galo magacaabista ra'iisul wasaare ku meel gaara in la kala jebiyay mucaaradka iyo isbahaysiga Muqdisho ka dhisnaa oo qaarkood hadda laba dhinac ay kala noqdeen kuwaas oo ay kala hogaaminayeen madaxweynayaashii hore ee dalka in gacanta lagu dhigay saddexda maamul ee Galmudug Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed oo ay dowladda Soomaaliya markan saaxiib u leeyihiin in la helayo taageerada golaha shacabka oo isku duuban awoodahaas oo dhan iyo waliba awoodii aqalka sare meesha laga saaray ayaa dadka badi ku tilmaamay inay tahay istiraatiijiyada cusub ee villa Soomaaliya ciyaartay oo u muuqato dhamaanba kuwa guuleystay marka loo eego qorshaha madaxweynaha iyo taliyaha hay'adda nabad sugidda habkan waa kan ugu weyn hadda villa Soomaaliya isticmaalayso ay doonayso inay ku hirgeliso doorasho oo waqtigeeda ka dib dhici karta magacaabista ra'iisul wasaaraha cusub waa wax kale oo meesheeda yaala dadka doorashada siyaasadda ayaa sheegaya in madaxweynuhu ku gorgortamayo qorshaha magacaabista ra'iisul wasaaraha cusub waana tan keentay in 34 maalin in wali dalka uusan lahayn wax ra'iisul wasaare ah madaxweyne Farmaajo waxa uu tagay Dhuusamareeb isagoo kaligiisa uusan magacaabin ra'iisul wasaaraha taasoo keentay in maamulada Puntland iyo Jubbaland ay gaashaanka u dururaan ka qaybgalka sidoo kale madaxweynaha ayaa lagu eeday inuu ka baxay ballamihii shirka Dhuusamareeb 1 iyo Dhuusamareeb 2 inkastoo istiraatiijiyada Dhuusamareeb iyo nooca doorasho ee la qaatay taa mid deegaan laakiin saldhigeedu yahay ergooyinka beelaha kuraastana lagu qaybiyay nidaamka hadda Soomaalidu heshiiska ku tahay 4.5 haddase waxaa muuqanaysa istiraatiijiyadii qorshaha ay madaxtooyada ciyaarayso Dhuusamareeb 3 oo aan wali lagu matalin maamulada Puntland iyo Jubbaland ayaa u muuqda doorkiisa inuu noqday mid ku koobnaa madaxweynaha kaas oo ilaa hadda beesha caalamka aysan taageerin ama aysan diidin natiijadii ka soo baxday shirka sababaha ay u saxiixi waayay labadaasi maamul ayay ku micneeyeen maqnaanshaha xukuumadda fulilida heshiiska iyo sidoo kale inaan la fulin Dhuusamareeb 1 iyo 2 ballamihii lagu ballamay shirka Jubbaland iyo Puntland madaxweynayaasha labada maamul ee Jubbaland Axmed Maxamed Salaam Axmed Madoobe iyo Dan ayaa saddexdii maalmood ugu dambeeyay shir wax kaga soconaya Garowe waxaana ay labadaas hogaamiye shirkooda ay soo gabagabayeen inay soo saareen qorshayaal u muuqda kuwo baalmarsan kii Dhuusamareeb 3 magacaabista ra'iisul wasaaraha cusub
haddaba shirka afraad hadda lagu wado inuu ka qabso magaalada muqdisho kaasoo ah mid kaloo istaraatiijiyadda xukuumadda ama madaxweyne farmaajo uu ciyaari doono qorshe kaloo ka duwan marka loo eego dhuusamareeb 1, 2 iyo 3 taas oo muuqan karta madaxweynaha xeeladiisa inay tahay markan mid kaloo aan socon karin marka loo eego shirka dhuusamareeb 3 marka laga soto kan hadda muqdisho ka dhici doona oo ay gadaal ka rixiso beesha caalamka inaan weli la magacaabin ra-iisul wasaaraha cusub waa joker kale oo ciyaaraya madaxweynaha Soomaaliya waxaase la ogeyn sida labada maamul Puntland iyo Jubbaland ay u qanci doonaan ciyaarta Villa Soomaaliya ee ah ama u ogolaan doonaanba in aan la magacaabin ra-iisul wasaare cusub ay yimaadaan muqdisho kana qayb galaan shirka kale ee muqdisho lagu ballamay haddaba sheekada la xirta qorshaha iyo kaartooyinka Villa Soomaaliya halka ayaan kaga gudbaynaa dhanka kale xogo kale aan helay ayaa muujinaya heshiiskii dhuusamareeb 3 in guud ahaanba la baabi'iyo meesha laga saaray madaxweynaha maamulada Puntland iyo Jubbaland ayaa shalay soo gabagabeeyay shirkoodii ay ku lahayn magaalada Garowe ee caasimadda gobolka Nugaal waxayna isku raaceen shir kale oo ka dhacay magaalada Muqdisho Axmed Madoobe iyo Dani ayaa caasimadda dalka Soomaaliya tagi doona shir wada tashi ah kaas oo xal siyaasadeed loo heli doono oo ku saabsan xaaladda cakiran ee qabsoomidda doorashadii lagu ballamay shirkan ayaa ka dhici doona magaalada Muqdisho wuxuuna u muuqdaa mid wax walba oo hadda lagu heshiinayo iyadoo meesha laga saari doono shirkii dhuusamareeb 3 taas oo dhaawac weyn ku noqon karta madaxweyne Qoorqoor inkastoo Saciid Cabdilaahi Dani iyo Axmed Madoobe ay sheegeen in ay tagayaan magaalada Muqdisho ay taabacsan yihiin mowqifkooda ku aadan ama kasoo horjeedaan shirka dhuusamareeb 3 waxaana taa la sheegay in ay tahay burburka shirka dhuusamareeb 3 hadda kadibna natiijada shirka Muqdisho la qaadan doono kaas lagu heshiin doono doorashada nooceeda markaan uu dhici doono saxiix wada jira inta ay socdaan kulamadaas ayaa waxa wada hadalada dhanka telefoonka dhaxmaray labada hogaamiye Puntland iyo Jubbaland madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo waxaana la sheegay in isku fahmeen inay yimaadaan magaalada Muqdisho markaana ay ka gurgurtamaan arinta doorashada iyo heshiiskeeda madaxweynayaasha kale ee ayna dhuusamareeb ku shiray ayaa u muuqda kuwa gaashaanka u daruuri doona shirka Muqdisho ee ku dhaxmari doona labada hogaamiye iyo dowladda federaalka Villa Soomaaliya ma xaqiijin wada hadalada dhanka telefoonka ee labada madaxweyne ay shalay shaaciyeen balse hadii uu jiro macnaheedu waxay tahay in shirka dhuusamareeb 3 meesha ka baxayo shirka Muqdisho uu noqon doono midka ugu dambeeya lagu heshiin doono nooca doorasho madaxda maamul goboleedyada Koonfur Galbeed Galmudug iyo Hirshabelle ayaa qoraal xalay soo saareen waxa ay ku soo dhaweeyeen shirkii Garowe iyo baaqi shirka cusub macnaheedu yahay inay aqbaleen shirka Muqdisho oo ay meeshana laga saaro dhuusamareeb 3 shirka Muqdisho waxaa la sheegayaa inuu yahay midka ugu weyn hadda beesha caalamka ee gacanta ku hayso abaabulkeedna ay leedahay madaxweyne Farmaajo ayaana lagu cadaadinay inuu hor fadhiisto labada madaxweyne ee qaadacay shirkii hore sidoo kale ay ku soo biiri doonaan saddexda madaxweyne ee kale ee dalka ka jira inkastoo ay suurtagal ay tahay in qodobada qaar ee shirka dhuusamareeb 3 la qaato kuwana wax ka bedel lagu sameeyo laakiin waxay u badan tahay badi dadku ay sheegayaan in wax badan laga bedeli doono go'aanadii shirka dhuusamareeb 3 iyo qodobadii waqti hore lagu heshiiyay qodobadani kale saaxiibayaal warkeena ku jira waxaa kamid ah Axmed Madoobe waxa uu digniin u diray dowladda federaalka Soomaaliya oo ku saabsan xaaladaha hadda jira warbixinadan ayaan soo koobi doonaa madaxweynaha maamulkaasi Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa ka digay qalalaasa siyaasadeed dalka ka dhaca hadii dowladda federaalka Soomaaliya ay waqtigeedu ku qaban weydo doorashadii lagu ballamay Axmed Madoobe warbaahinta kula hadlay Garowe markuu soo idlaaday shirkii Garowe ku dhaxmaray asaga Jubbaland ayaa ka digay muranka ay iska qabsiga sii socda taas oo sheegay inay keeni karto xasilooni darro iyo qalqal gelin kara xaaladda siyaasadeed dalka waa in laga shaqeeyaa sidii doorasho ay u dhici lahayd waqtigeeda kaga dhici lahayd dalka qalalaasa siyaasadeed ma ogolaan karno sababtoo ah waqti kale dheeraad ay naga qaadanaysaa isbedel siyaasadeed iyo qalqalba uma roona dalkan ayuu yiri Axmed Madoobe madaxweynaha Jubbaland ayaa sidoo kale waxa uu marxaladda kale guurka ee dalka hadda marayo ku tilmaamay mid dulqaad badan isku tanaasul dheer ah loo baahan yahay si loo gaaro hanaanka doorasho 2020 Axmed Madoobe ayaa sidoo kale dowladda Soomaaliya kaga digay isku day walba oo la xiriira in ku majaxaabiso waxyaabaha ay Soomaalidu ku heshiisay iyo doorashada madaxweynaha Jubbaland ayaa dhanka kale sheegay in diyaar yahay wax walba oo wada hadal ah ku saabsan iyo tanaasul ah arrimaha doorashooyinka
dowladda China haddii eegno waxay digniin culus ay soo saartay dowladda China gaar ahaan safiirka China u fadhiya Soomaaliya mar kale ka digay xiriirka Taiwan ee la leedahay maamulka Soomaaliya soo talabadaas ku tilmaamay mid dowladda China iyo Soomaaliya aysan aqbali doonin maadaama labada dalba Soomaaliya iyo China aysan aqoonsaneen Somaliland iyo Taiwan ayaa xiriir diblomaasi nooc cusub la yeelatay Somaliland xilli dowladda federaalka ay ku tilmaamtay xadgudub dhanka qaanuuniga ah iyo waliba qarannimada Soomaaliya. Shiinaha iyo Soomaaliya isku raaceen xiriirka Taiwan oo mid aan sax ahayn Somaliland kaas oo dad badan ay ka keeneen. Safiirka China ee Soomaaliya Ambassador Hin Chon ayaa mar kale ku celiyay in Taiwan dhulka Soomaalida ay ku soo xadgudubto aan laga aqbali doonin xadgudub iyo qaanuunka sharciga inay ku gudubto. Ambassadorku waxa uu sheegay in aan la aqbali doonin gardarro cad in Taiwan oo kamid ah maamul hoostaga wadankaasi China inay warar ay ku soo qaadaan Soomaaliya. ugu dambeyn daawadayaal madaxweyne qoorqoor waxa uu ku dhawaaqay qorshihiisa dagaalka ee ka dhanka ururka al-shabaab ee la doonayo in laga fuliyo gobolada deegaanada Galmudug. Madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa sheegay in toddobaadka la bilaabi doono howlgal culus oo ka dhan al-shabaab. Howlgalkaas uu sheegay inuu ka bilaaban doono gobolka Mudug. Waxa uu sheegay in bulshada ku nool gobolka Mudug gaar ahaan deegaanka Bacadweyn ay iska difaaceen weerar al-shabaab kaga yimid. Weerarkaas uu sheegay in al-shabaab ay doonayeen in ku guud ahaanba ay ku burburiyaan deegaanada Galmudug. Waxa uu sheegay madaxweynuhu inay diyaar u yihiin wax walba al-shabaab ay iska difaacaan. Madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor waxa uu ugu baaqay guud ahaanba bulshada ku nool deegaanada Galmudug inay u diyaar garoobaan dagaalka dhan al-shabaab isla markaana ciidamada Galmudug dhankoodana ay bilaabi doonaan wax walba oo dagaalkaasi ku saabsan. Wararkan ayaa ugu waaweynaa daawadayaal. Wararkeenan maanta waa inay ka taasi nabadgelyo.